السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada deeq tutors channel. maanta waxaan doonayaa inaan idin tuso application aad u isticmaalaysid social media. wuxuu faa'iido ku leeyahay adigoo social media isticmaalaya, yani internet isticmaalaya. internetka waxaa laga yaabaa inaad wax ka daalacanaysid ama casharo ka daawanaysid, laakiinse social media wuu kuu furan yahay, ay ku soo dhacayaan SMS ama message kala duwan. marka waxaad u baahan tahay si aad adiguna daalacashadaada ama wax akhriskaaga u sii wadatid, internetkiina uga faa'iidaysatid, si aadan ugu mashquulin social mediahan inaad isaga xidhid. application kuu faa'iideynaya inaad social mediaha iska xidhid, kadibna internetkaaga iska isticmaashid. sidoo kale qayb ka mida ayaad deysan kartaa, qayb ka midana waa iska xidhi kartaa. marka applicationka waxaa la yiraahdaa firewall. applicationka cas halka idinka muuqday firewall ku qoran tahay. applicationka waxaad ka helaysaa Play Store-ka ama Apple Store. Play Store-ka markaad tagtid, iminka waxaan sameynaynaa uninstall baanu leenahay, waan soo dejinaynaa. Play Store-ka markaad tidhaahdid firewall network haddaad qorto kuu soo saaraya, waa kaa u sarreeya ay ku hoos qoran tahay firewall studio. way kala duwan yihiin. halkaas aad aragtaa kuwanaan baad ku arkaysaa, mid kale halkaa hoostiisana ku aragtaa Moon Studio Global. marka waxaan isticmaalaynaa inagu kaa u sarreeya. waan soo dejinaynaa, install, open baad leedahay. halkaasuu ku keenayaa. waad aragtaa dhammaan applicationadii kugu jiray mobilkaaga oo dhan halkaasay kusoo ururayaan. marka waxaan sameynayaa applicationkayga casharka maanta waxaan ku qaadanaynaa WhatsApp. WhatsApp baan doonaya aniga online inaan wax message aanan diri karin, layna soo diri karin. marka ila soco. marka hore waxaan tegaya WhatsApp-kan tijaabada testa ku sameynayo. WhatsApp-kaas inuu shaqeynaya nigaya. marka hore internetka waad aragtaa oo ku xidhan yahay. WhatsApp-ka halkaa yaalla oo GB ah, iyo WhatsApp-kaasna oo channelka oo koobiga ah ayaan rabaa inaan message isaga diro. kanaan gelayaa. waxay ku qoran tag waa kan kale ku qoran. asalaamu calaykum waan u dirayaa. WhatsApp-kii kalaan gaadhayaa inuu fariintii soo gaadhay baan eegayaa. waad aragtaa waxaa la soo diray asalaamu calaykum on time. wacalaykum asalaam baan leeyahay, waana online. waad aragtaa. kii kalaan ku noqonayaa. yani waxaan rabaa ituso itaabsi inaan ka dhigno. waad aragtaa wacalaykum asalaam. marka waxaan doonaya inaan xidho mid ka mida inaan xidho labada. waad aragtaa halkaa deeq online weeye. mid ka mid inaan xidho si aan wax message way igu dhicin. waxaan tegaynaa firewall-ka. kaasinu doonayna inaynu xidhno. iminka message-adii way inoo soo dhacayaan. iminka waxaan doonaya wax message inuusan ii soo dhicin. saan u xidho. marka hore taas halkaas bay ii joogtaa, waa off. marka ofta uu joogo message-adu way soo dhacayaan. haddaan halkaa off ka dhigo oo aan taabto labada calaamad wireless oo midna antennada, still message-ka way soo dhacayaa. hase taasaan waxaan ka dhigayaa on. labada calaamadii waad aragtay inay saaran tahay, midna antennada oo eeg midna wireless-ka. waan ka tegayaa. WhatsApp-kaygii baan message u dirayaa. waa kaa kalaan tegayaa. asalaamu calaykum waan u dirayaa. waxaan tegayaa WhatsApp-kii kale. fariintii may soo gaadhay.
fariintan waa fariin hore weeye ayse hadda waxaan dirayaa ima soo gaadhin fariintii hore tan waa tii hore laakiinse ima soo gaadhin fariinta hadda soo diray anaa diraya asalaamu calaykum ama wacalaykum asalaam oo kale waxaan dirayaa image oo kalaan dirayaa imagekaasaan kalaan dirayaa marka waad aragtaa igama bixin messagekaas taasuu isaga wareegayaa wayl aan iska isticmaalayo internetku caadi yahay saroon internetka xidhan waan geli karaa waxaan geli karaa chromekaas oo kale aan geli karaa google baan qori karaa internetka caadi ugu shaqeynayaa waxaan raadin karaa deqtuutaris youtube-kan ku dhex dhufan karaa waad ila socotaa waad aragtaa soomaha videogan doonaan daawan karaa yacni whatsappkii social media baan nimay uun waad aragtaa wuu shaqeynaya internetkeygii waxbaan ka daalacan karaa dhammaan inta whatsapp facebooka laftigiisa waan iska xidhi karaa applicationo kale oo jiraan lagu xidho laakiinse kan waa kuwa ugu simbalsan dhammaan youtube-ka waa kan iska xidhi karaa laftigiisa youtube-ki waa kaa iska xidhi karaa whatsappka kale igu jiraan xidhi karaa dhammaan waxlaala waxaan jeclay waan xidhi karaa marka waxaan sameynaya haddaba waan ka qaadayaa tigtii kana fur kana waan ka qaadayaa halkaan on baan ka dhigayaa labadana tigta waan ka qaadayaa haddaba message isu dirayna haddaba waa kan ma xidhna isagu yani sawirada hadda waad aragtaa sawirada hadda isoo gelaya salaantii wixiiba haddaan diraya aniguna sawirkii marka hore aan ii soo gelayn waan dirayaa sawirkaas way ka baxay kanaan tegaya san wax ma ka diri karayaa waa kan xidhin waa kan koomaynan xidhin laakiinse muhiimad waxa weeye kan whatsappkan inay waxna geli karaan waxna kasoo bixi karaan yacni labadaba waad xidhi kartaa adigu social media markaa isticmaalaysid messageka markaa inaga baxeen oo kale waad diraynaa waad aragtaa wuu baxay marka intaas cashirkiina maanta ku kooban yahay channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu